maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku soo baxay guri gabadhuna waxa weeyaan oo ninku u saaraya bannaanka gabadh maxay leedahay ilmahaygaan rabaa gurigaygaan rabaa haddii aan baarnana waxaaba soo baxdayba inay wuxuu uun yihiin keliya amar taaglayn gabadhaan wax qalad la yidhi oo weyn laguma hayo ninka unbaa waxuu raba inuu gabadhii waxa uu cadaadiyo iyadiina maxay leedahay reerkaygaan rabaa ilmahaygaan rabaa meesha maxaa ka muuqanaya in xooga uu isleeyahay xilkan laguu dhiibo adaa middaa sarreeya haddii gabadha laguu guuriyey oo mas-uul lagaga dhigay ogow in lagula xisaabtamayo macnaheedu ma ahan haddii lagu yidhi gabadha adaa ka mas-uul ah oo gabadha adaa qawaamo u ah gabadha ku tumo in lagugula xisaabtamayo aayadda qaybta u dambaysaa rabbi jalla wacala ku yidhi in allaha kaana caliyan kabiira ilaahay subxaanahu wa tacaala adaa lagu daraysiinayaa markii lagu yidhi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu rabbi jalla wacala wuxuu u dabamariyey in allaha kaana caliyan kabiira rabbi waxa weeye waa mid sarreeya oo waxa weeyaan weyn haddaad gabadha adigu qawaamo u tahay oo mas-uul laguu dhiibay ogow mas-uulka in lagugu iyaarsanayo lagugu kontaroolayo sida gabadha aad yeesho qaara xaqa gabadha isaga tunta haddiiba loo guuriyaba ku abartaagleeya oo gabadhii wixii laga raba gurga inay ka hesha ay ka weydo maxaa gurga loogu talagalay inay iska helaan mawadda iyo raxma gurga gabadha marka loo soo guuriyo yacni isaga unbaa gabadha isaga tumanaya sida u dawlo ka yeelayaa gabadha waxa way xaq bay leedahay gurga waxaa la rabaa inuu ku dhisnaa shaawir iyo tashi iyo adigu go-aanka ugu dambeeya adigu yeelo laakiin maxaa la doonayaa inay gabadhu ka hesho naxariis kalsooni jacayl ilaa rabbi waxa uu dabamariyey haddii ogow ilaahay inuu mid sarreeya yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala mid weyn yahay hadda adigu xilhaydo ilaahayba kaa weyn hadda adigu isla sarraydo haddee kama sarraynin gabadhan qiimama dheerini xilka ilaahay kuu dhiiba weeyaane haddee waxaad ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacala inuu kaa sarreeyo gabadha maxaa la doonayaa marka gurgaan marka la isla tago ee wiilkaan gabadha lagu meheriyo guriga uu la tago inuu jacayl iyo maxabo la iska helo in la iska helo kalsooni gurga lagu wada dhaqo oo awlaad lagu wada yeesho oo reerku noqda reer degan oo isa qayla ka soo yeerin laakiin waxyaabaha dhaca maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku soo baxay guri gabadhuna waxa weeyaan oo ninku u saaraya bannaanka gabadh maxay leedahay ilmahaygaan rabaa gurigaygaan rabaa haddii aan baarnana waxaaba soo baxdayba inay wuxuu uun yihiin keliya amar taaglayn gabadhaan wax qalad la yidhi oo weyn laguma hayo ninka unbaa waxuu raba inuu gabadha waxa weeye xoogaa hubiyo inuu gabadhii hubiyo oo gabadhii waxa weye cadaadiyo iyadiina maxay leedahay reerkaygaan rabaa ilmahaygaan rabaa meesha maxaa ka muuqanaya in xooga uu isleeyahay xilkan laguu dhiibo adaa middaa sarreeya war sarraynta waa inta yaro ilahay jalla wacala fadli kuu siiyey iyo anfaqada iyo nafaqada aad bixinayso laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala kaa sarreeya